أنا ما كاد أكتو ضد سوا ضد شرعية وحنا شرع كتاي كو قاب كان هذا سامي قيب سجلوا سمية إمك أو كل سنة هاي وحلو بيس كريي قاب كيوها إن أنت سجستي إن أنت سجستي قاب كاسموها قاب إنجليزكو أي كسليهن علمي الله مثلاً تلاقب الله مثلاً ديوان قلنا الله مثلاً ما دام قاب علمي أن الله صالين إن أنت سجستي سيدي اللي أهان شري ما تضطركم قصبنا لمبر 2 waxa weeyaan qaabkan maanta ay intaan hadda lambarka ay helaan gobolada bari iyo marka dadka awdal inta ay ku leeyeen golaha wakiilada ay ku leeyeen marka adeegtaan waxa uga badnaa markii beelaha lagu shaqeyn jiray baarlamaankii waqtigii muxaahay runtii in lagu soo aasaasay Boorame iyo Hargeysa baarlamaanka tirooyinka ku lahaayeen ayaa ka badan sababtoo ka odol waxa ku leeyahay 16 xubnood bay ku leeyahay marka la isku wada daro kan maanta 4 bay ku leeyahay bariga reer bariga waxa ku lahaayeen ama la saanood marka la sugayo beelalka day waxa ku lahaayeen 15 bay ku lahaayeen kana maanta 10 bay ku leeyahay marka waxa qodobka sheegaya markoodii hore qaabkay markii beelaha lagu jiray qaabkay ahaayeenba maantaba uga fiican ayaa maxay maanta ka fiicnaanaya qodobka saddexaad waxa weeyaan isla runtii aadka u muhiimkii doorashada markii la galay xildhibaanadii soo baxay marka la eego waxa jira xildhibaano ku soo baxay koncod iyo xildhibaano ku soo baxay baa jira 10 kun iyo wax ka badan arintaas maxay tilmaamaysaa waxa tilmaamaysaa saami qaybsiga qaabka loo sameeyo cadaalad darraynaha sababta laba xildhibaan inta inuu u kala dhaxeeyo waxa tilmaamaysaa qaabka gobolada loogu qaybiyo tiradu inaanay sax ahayn ayay iduna tilmaamaysaa oo qodobkaasina runtiisna waa qodob aad u muhiim ah waxa kale isna runtii qodob aad u muhiim ah meesha yaala oo doodan maxay isna aad u adkeynaya markii golaha wakiilada doorashada la qabanayay ee xeerka la ansixinayay waxa lagu heshiiyay gobolada bariga iyo awdal waxa lagu qanciyay xeerkana lagu dhigay hal mar in lagu galayo maadaama la yiri hal mar baa lagu galay oo qodobka 12 xeerka doorashada golaha wakiilada uu sheegayo hal mar inay tahay maanta in mar labaad lagu qabtaa sharci darro noqonaysa يعني واحد المامس مسؤولية حكومة صارنا إن أنا فلين مسؤولية برلمان كصارنا إن فلين بيتمامسا تاسنا وقضب كلا حتى نسمع ماشي يلا أو ضد نصيحة كينايا ما أنت مركز أكتو قلاه وكيلا ده كهذا شوقة دورشة كوسابحين مركي أي دورشة كوسابحين تيرويكي أي كلا هلين iyo beelaha ka soo jeeda bariga iyo galbeedkaasi tirada ay imika haystaan waxa tilmaamaysaa farqi weyn u dhaxeeyo tusaale ahaan numberka golaha wakiilada ugu jira beelaha ka soo jeeda galbeedka Burco beelaha ka soo jeeda bariga Burco beelaha ka soo jeeda galbeedka Hargeysa ayaa waxay ka badan yihiin awdal iyo maxay bariga way ka badan yihiin يعني gobolada awdal xildhibaanada maanta haysan waxa ka badan xildhibaanada ka soo jeeda galbeedka Burco iyo bariga Burco iyo galbeedka Hargeysa taas waxa tilmaamaysaa farq weyn runtii hatta xaqii beelnimada leesuma dhawaa waxaad hadda moodaa in goboladii saami qaybsiga iyo arintan doonayay ay hadda doodooda ku adkaysanayaan dadkii xukuumadda lafteeda waxaad moodaa inaan dhag jalaq loo siinaynin doodaas marka sideed adigu xalka u aragtaa in runtii in gobolada bari iyo galbeedka ee hadda cabashada qaba waa in loo kordhiyo xubnihii ay ku lahayn golaha wakiilada sideeba loogu kordhinaya koow waxa la sameeynaya waa in madaxweynaha Soomaaliland uu saaro guddi qaran waa inuu saaro guddida qaranku waa inay baaritaan ku sameeyso sida mushkiladan loo xalinayo markay baaritaan ku sameeyaan waa inay xadidaan marka ay soo bandhigaan tirada loo kordhinayo runtii gobolka ay soo bandhigaan anu halka taasaan u arkaa waxaan u arkaa markii doorashada la galayeen 2025 la galayeen tanaasulka waxa sameeyay gobolada bari iyo muxaa galbeedka sameeyay maanta waxa looga fadhiyaa muxuu ahaay beesha dhexe waxa looga fadhiyaa iyagu inay tanaasulka ay sameeyaan madaxweynuhu hormood ka noqdo arinta xalkeeda uu keeno sababtu waxay tahay bariga hore waa la isku qabsaday golaha wakiilada 2005 kii laba jeer baa loo kordhiyay sababta loo kordhiyo wax kama ahayn waxa loo kordhiyay markii saami qaybsiga la isla fahmi waayay markii dambe guddi baa loo saaray guddidii baa fikradan keentay marka qaabka in loo qaybiyo marka maanta waxaan qabaa in iyadana la hawl galo oo runtii muxuu laga hawl galo in guddi la saaro walada awdal doodooda runtii markaan aad u dhageystay qodobo macquul iyo qaaran macquul ah ku jiraan golaha wakiilada xubnaha ka socda matalaya gobolada awdal hadda hadlaaya xildhibaanadaas maanta حق وما لهنا كهلان دودا 15 سنة أي فديين
mudday soo fadhiyeen inta fadhiyeen waxba kamay qaban saami qaybsiga maanta dooda inay iyagu furaan baabka soo ka xidhaya laakiin shacab weynaha awdal waa u furan tahay xaqna waa u leeyihiin laakiin ninkii isagu meesha bedelay ka kacay laga kicinayay inuu maanta dood kala furo iyadoo waxa qaba waqtigooda waa la soo dhaafay waxa kale ku daraya fikradda ay soo darxiyaan aw aan arkay dhalinyar badan soo darxinayna in 50-50 loo qaybiyo oo beesha dhexe 50 qaadato qaybaha inta kalena ay 50 qaadato waxaad moodaa systemkaasi hadii la raaco horta systemkaasi wuxuu ku haboon yahay marka la qaybinayo golaha guurtida waa in loo sinaada maadaama markiis hore beela lagu soo xulayo waa in beelu si fiican u sinaadaan laakiin golaha wakiiladu ka duwan golaha wakiiladu population ku matala tirada dadku matala isaga beel lagu masalayn karo marna waad la socotaa doorashooyinka Soomaaliland dib ayay dhowr jeer u dhaceen hadda dad badan iyo xukuumadba waxay ku talinayaan in doorashadii la galo oo golaha wakiiladu intay joogaan waad ogtahay deegaankii waad ogtahay marka haddii haddana la yidhaaho gobolada cabanaya ha la qanciyo soo doorashadii haddana dib uma sii dhacayso haddaan si kooban kugu sheego horta innaga waxa muhiimka waa natiijadu waa maxay doorasho xor iyo xalaal ah inoo dhacdo haddii laakiin processka aynu qaladna imika oo processkii iyo cabashooyin badan ay taagan yihiin dad badan ay aaminsan yihiin inay ka maqan yihiin matalaadii aynu gallo doorashada inoo soo baxda raali lagu ma noqonayo marka doorasho sax ah inoogu dhacdo waa in imika dadka la qanciyo